biyo cabitaanka iyo faa'iidada ay u leedahay arrintaasi caafimaadkaaga quruxdaada maasha Allah dadkuna way dhayalsadaan ahmiyad weyn lama siiyo aadna loogama hadlo mawduuca marka insha Allah maanta mawduucaynu ka hadlayno waxa weeyaan biyo cabitaanka iyo faa'iidada ay anfaca uu inoo leeyahay xagga gudaha organskeena iyo shaqaynta jirkeena iyo xagga quruxdeena guud marka qofka la arko biyo cabba iyo qofka kale isku mid maaha maqaarkooda xataa isuma eka so guys soo dhawaada mawduuc fudud weeyaan laakiin faa'iido badan kuma dheeraanayana Welcome to ACS TV show. So dhawaada dhammaan meel kasta dunyada ka daawanaysaan videoga oo idinka salaamaya. Welcome. biyo cabitaanka markay noqoto guys waxa muhiim ah horta inaad fahamtaan arrimo yar yar haba u horeyse jirkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanku u sameeyay inaku markaynu aragno ma arkayno biyuhu halkay joogaan hase yeeshee jirkaagan dhan 60% ilaa 70% waa qiyaas aad weyn waa biyo ka waran gebigeenaba waxaanu nahay abuurteenu biyo soconaya 60% markaa tahay biyo 40% ka hadhay maxay noqonayaan lafaha iyo muruqa iyo diirkii waxa soo dhan biyo ku jira iyo kana biyuhu waxa soo dhan bay anfacayaan oo galayaan laakiin guys waxa loo baahan yahay qofku qiyaasta biyaha jirkiisu 60% inaanay hoos uga dhicin okay marka inta miisaankaaga yahay haddaad haraas ku disho haddaanad biyo cabin 60% kaaga wasnaaqusaya waxa laga yaabaa inaad adiga iskaysid 50% 40% oo jirkaagii dehydration ku dhaco iyo engeg oo biyihii kugu yaraadaan haddii biyuhu jirka ku yaraadaanna oo miisaanka Ilaahay ugu talagalay ay hoos uga dhacaan dan dhibaatooyin baa imanaya guys fara badan so taarto waa inaad fahamtaan waa inaad maintain garaysaan 60% markasta inay ahaadaan jirkiini biyo oo aanay isdhimin way isdhimayaan way ku soo dhaafayaan dhidid bay kugu soo dhaafayaan يعني كاري أهم بيكون صار فيان سيابو فربضان بيكون صار فيان مركا أدينا وين تسوع السيد مركا أنت كودا فيسا سيانو قياستي هوصل لإنه أوكي أنت ورسس لفهمه واي هاي أنت أنا نوجد بين فائدوينك بيعبتانك وإنه ليه هاي سيجود فضلا جايز لايتي كلفتا فإذا بدن باكتي ما ضدك مركا حسوسيو because bina aadamku xaweeyeen way isaga baahan yihiin la xasuusiyo idinkuna guys waa dadaasheen aad baad u mahadsantihiin haddana waa xasuusin kale laagta ku dhufta insha Allah markaasaynu sii wadayna insha Allah barnaamijkeena qiyaasta iska caadiga ah ee loo baahan yahay biyaha inaynu ka qaadano maalintii normalka waxa weeye ilaa 2 litir oo biyo ah ama 8 galaas oo biyo ah maalintii 6 ilaa 8 galaas oo biyo ah waxa la rabaa in guys lagu dadaalo insha Allah jirkaaga inaad siiso wadu qaybanaysa hadaa doontidba 2 ama 3 subaxii cab sad hawshiisaga fudaydiso habeenkii ha u badsanin marka seexanayso ama xilliyada biyo cabitaanka way taas waxay ka yara khalkhalinaysa hurdadii habeenkii baa laga yaabaa in kaadi ku qabato musqushi dhowr jeer u kackaadid marka gaas xagga hore ka soo cab biyihina insha Allah faa'iidooyinka inta aanaynu ka hadal dhibaatooyin yar yar oo fara badan baa ka yimaada biyo cabitaan la'aanta waxyaabaha fudud oo kaliya haddaan idiin sheego soo hadda idinkumaan odhanin 60% jirkeeni waa biyo 2% haddii intaas iska yara dhinto waxaynu dareemaynaa haraad aan caadi ahayn maxaan uga jeedaa 60% kaagi hadduu hoos u yara dhaco oo noqdo 8% haraad aan caadi ahayn baad dareemaysaa haraad aan caadi ahayn dadka exercise ka sameeya carare ordaya dhidid fara badan ka baxay muddo dheer cararaya ma yani muddo saacad oo kale dhididaya waxa laga yaabo 60% koodii inuu ilaa 6 ama 8 hoos u dhaco yani 250 450 biyihii qiyaasi jirkoodu ay u dhacdo taasi markay dhacdo dehydration aan caadi ahayn baa qofkii ku dhacaya engeg yani aad u badan oo ku keeni karaya waxay dareemaan sida madax xanuun oo kale wareer oo kale energy la'aan iyo tamar darro
waxyaabaha ugu fudud guys, waxyaabaha ugu fudud weeyaan. dhibaatooyin waaweyn ayaa ka iman karayana biyo la-aan, biyo cabitaan yaraanta la-aan ma odhanayna yaraanta. okay, faa'iidooyinku qiyaas ma laha, laakiin qaar baynu kasoo qaadanayna insha allah. yacni common ah waxyaabaha lala kulmo joogto ee ka imanaya biyo cabitaan yaraanta. maxaa ka mid a guys? maskaxdeennan ilaahayna siiyey qaybta ugu weyn ay ku shaqayso waxaa ka mida biyaha. okay, biyaha qofka cabitaanka hadduu yaraysto oo jirkiisu aanu cabin biyo ku filan, madax xanuun badan ayuu qofku dareema, wuxuu dareema dhanjaf. okay, dadka madax xanuunka ku badan yahay, dadka dhanjafka ka cabta, waxaa laga yaabaa biyo badan ma cabaan, biyaha badani dawo u tahay. weliba anigu mid baan idinku daraya guys yar, milixda dabiiciga ah maaragtay sida Himalaya saltka oo kale, ama tabadda, ama tan dhagxaanta ee buuraha laga soo guro iyo ee dabiiciga ah. in yar haddaad biyaha ku darsato madax xanuun markaad ka cabanayso, aad bay madax xanuunka u duwaysa guys. okay, in yaro milix haddaad ku daadiso. laakiin guys maskaxdu qayb weyn oo kamida ayaa ku shaqaynaya gebigeedaba biyo. okay, marka taa aad ha loogu fiirsado insha allah. madax xanuunka waa ku badan yahay dadka, ismana ogaa ciladu hadday doonto waxa weeyaan un biyo cab, jirkii baa kugu leh biyo cab waa engege. arrin kale oo biyuhu aada ugu fiican yihiin waxa weeyaan ka hortagga kelyuhu inay sameeyaan dhagxaan. okay, qofku haddaanu biyo badan cabayn, ileen kelyuhu waxa weeye waa shaandhadii jirka, markii wixii uskaga jirka markuu kasoo baxo oo dhan shaandhadii weeyaan sii reebaysay inta aanay kaadi ahaan kugu soo dhaafin. okay, marka shaandhadii waxay u baahan tahay caawimo. biyo badan markaad cabaysid, biyahaas waxay caawinayaan inaanay waxaani is urursanin. uskagan jirkii kasoo baxay maaragteen, keliyaha markuu tago wuxuu tegaya keliyihii isagoo khafiifoo shaandhada ka dhex dusaya dee dhaafaya, oo marka biyo badan la cabayo uu dhaafaya, shaandhadu ma qabanayso. laakiin marka aan biyo badan la cabayn, keliyihii way la harayaan, wixii wuu is urursanaya, uskagii intuu isu tagtago ayuu adkaanaya, markaasuu wax dhagxaan oo kale a noqonaya dee. okay, wixii wuu isu tagtagay, wuu is urursanaya, waanu weynaanaya. dhawx siduu u koraa, uskagii marba jirkii kasoo baxayay ayaa kii kale qabsanaya, markaasuu wixii isla weynaanaya, uu noqonaya dhagxaan waaweyn oo qalitaan uun lagu soo saari karaya. marka waxa fiican ka hortagga in lagu dadaalo oo ah marka horeba yaani kugu fadhiisan uskagu oo keliyaha yaanu ku fadhiisane, kaadidaadu ha badato, hana ahaato kaadi nadiifa oo maaragtay dhaqso kuu soo dhaafta xilli kasta. kaadidu wada aragtay midabkeeda xitaa wuu isbedelaya, urteedu waa isbedelaysa haddaan biyo la cabayn oo ay jirkii ku raagto. arrin kale oo aada ugu fiican yahay biyo cabitaanka waxa weeye calool istaaga guys. dadka calooshu taagan tahay, biyo cabitaanka badsada, weliba biyaha mineralka a maaragtay magnesium yaa ku jira. magnesiumku aada buu ugu fiican yahay calooshu inay ku socoto. marka guys insha allah taana aada ugu fiirsada oo cabitaanka biyaha ha loo badsado arrinka. dadka jecel inay miisaan iska ridaan, baruur iskala dagaalamaya ama raba miisaankooda inay wax ka ridaan, iyo cabitaanka ha la ogaado. sababto ay tahay dadkani maxay ku naaxeen badanaaba somaha cunto xilli kasta iska cunayaan. halkay marba ka yara gaajoon lahaayeen ay marba waxay ku nusu saacayeen raadsan lahaayeen, waxa fiican inay biyo calooshii ku buuxiyaan. calooshii markaa gaajadii farabadnayd aad dareemaysay ama baahidii kuu qabaysay marba inaad wax yar cuntid ayaa meeshii ka baxaysa. waxaad ku bedelaysaa booskeedii biyo inaad ku buuxiso. okay, gaajada farabadan dareemi maysid, baahida badan baa kaa ba'aysa. taasna waxay keenaysaa in miisaankii dhaco. hawlihii kale, faa'iidooyinkii kale biyuhu aad ka helaysana waa halkeedii, iyadoo meel kastay kaa caawinayaan ayaa guys miisaankiina dhacaya, because waadiganoo afkaiyo gacantii iskuma haysid markasta. qiyaas ma lahaa faa'iidada biyaha in aada loo cabo guys. taa iyadoo ay jirto ay xaqiiqo tahay, haddana dhibaatooyin baa ka iman karaya biyo cabitaankoo xad dhaaf laysugu badiyo oo uu qofku iska tanbadiyo. okay, waxa dhici karta inuu dhiiggii milixdii ku yaraato. haddaad biyihii xad dhaaf isaga badiso, dhiiggaaga milixdii ku jirta inay aada u yaraato. waxaa dhici karta inay maskaxdii bararto,
biyo cabitaanka fara badan ay maskaxdii bararto waxaa dhici karta inuu qofkii ku dhinto arrimaha noocaasa okay dadkuna isku mid maaha jirka bini'aadamku qof kasta qiyaas gaara ayuu u baahan yahay biyaha inuu ka cabo taa waxaa loo baahan yahay inaad dhakhtarkaaga kala tashatid adiga iyo xaaladaad ku sugan tahay weeyaan waayo dadku ma sinaan karayaan isku inama cabi karayaan qofka caafimaadka qaba aan xanuuna ka cabaninba 6 koob 8 koob meelaha loo ogolaya maalintii inuu cabay u fiican tahay qofkan waxba isku ogeyn dadka caafimaad darro isku og sida dadka aanay kaliyuhu si fiican u shaqaynayn dadkaasi dee biyo cabitaanka waa ka mamnuuc because jirkoodii maba kaajiyo waa kunoo dee waa la safaynaya okay oo biyihii jirkoodii buu kusoo noqonaya dad xanuuna ka qaba sanbabada biyo cabitaan badan looma ogola markaa guys xaaladiina caafimaad ayay ku xiran tahay biyo cabitaankaagu qiyaasta inta lagaaga ogol yahay waa fahamteen taa idinkoo og guys ayaad ku xisaabtamaysaan insha allah waxaasoo dhan xagga quruxdii baa timi guys qiyaas ma laha maqaarkeenu waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu u baahan yahay waxa weeyaan biyo okay iyo mowduuc maanta maaha vitaminskana wuu u baahan yahay si gaara vitamin c oo biyaha ku socotaa markaa guys caafimaadka maqaarkana aad bay ugu fiican tahay okay ma soo koobi karayno jirkaagoo dhan waxay biyuhu faa'iido u leeyihiin laabatooyinkay u fiican yihiin guys socdaalka dhiigga jirka blood circulationkaaga organskaagoo dhan wadnaha beerka keliyaha organska gudahaaga ku jiroo dhan meel aanay anfacayn guys biyuhu haba yaraatee ma jirto okay just waxaad ogaataanuun dhakhtarkaaga la hadal oo ka warayso haddii caafimaad darro aad isku og tahay si aanay dadka isu dhaawacin oo qof aan qaadan karin biyo intuu biyo iska dhergiyo uu dhibaato ku timaado waa fahamteen intaa waxaan ahayn guys lama qiyaasi karay faa'iidada biyaha adduunka ilaahay abuuray the globe okay 4 meelood marka loo qaybiyo 3 meelood waa biyo jirkeena 4 meelood marka loo qaybiyo 3 meelood waa biyo miisaanka ilaahay baa sidaas inooga dhigay biyuhu markaa guys waxa way noloshii dhammayd okay masha Allah tabarakallah wixii su'aalaad ka qabtana guys ku soo qor waan soo koobaynugu haddaynu ka hadalno faa'iidooyinka ma soo koobayno okay laakiin waa tusaalayaal kuwaasi guys insha Allah wixii su'aalaad qabta waad soo qoraysan wixii comments aad ayaan idinka wada mahadnaqaya insha Allah taageerada page-ka iyo channel-ka u muujinaysaan halkan waxaan uga mahadnaqayaa inaan magaceedu kuma qorna account-keeda laakiin comment-keedii baan soo sawiranaya halkan idiin soo dhigaya inanta aad baan uga mahadnaqaya insha Allah dhiirigelinteeda iyo la talinta ay siinayso dadka guys la soo dega application-ka inantaas idiin sheegayso okay waxaa la yiraahdaa magaciisa VPN waa noocyo fara badan waa free la soo dega connect gareeyo internetka connect garaysta waddanka doontaan ka dhigta Mareykan UK then halkaa markaa sidaa uga daawada YouTube-ka oo dhan insha Allah aad baad mahadsantihiin dadkan la soo degana waa dadka jooga waddanada aanay ka arkin xayeysiisyada sida Somaliland Soomaaliya Djibouti meelaha lagama arkayo guys marka la soo dega VPN insha Allah aad baad mahadsantihiin dhammaan intaan videoga dambe ku kulmayno ma salaama